ay ka badnaayeen kuwiisa. Alexander waxa uu adeegsaday xeelado ciidan oo cajiiba. Dagaalkii caanka ahaa ee Asus iyo Gaugamela waxa uu jiray safafka hore ee ciidan, isagoo guulo taariikhi ah ka soo hoyay. Ma uusan istaagin, waxa uu u gudbay dalka Masar, halkaas oo looga dhawaaqay inuu yahay boqor Rabbaani. Waxa uuna dhisay magaalada caanka ah ee Alexandria. Kadib waxa uu ciidankiisii u soo horseeday dhankaas iyo Hindiya, isagoo ka gudbay buurihii dhaadheeraa iyo webiyadii waaweynaa. Laakiin boqortooyo kasta waxay leedahay dhammaad. Kadib 11 sano oo dagaal joogto ah, ciidankiisii oo daalay dhibaatooyin iyo fogaanta guryahoodii awgeed ayaa diiday inay horey u sii socdaan. Alexander waxa uu go'aansaday inuu dib u sanadkii 323 ka hor